banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay doodii uu xildhibaan Gavin Williamson geeyay baarlamaanka dalka Ingiriiska taasi oo lagaga doodayay qadiyadda madaxbannaanida Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kumanaan qof oo sitay calanka Jamhuuriyadda Somaliland oo uu heliyo calanka dalka Ingiriiska iyo sawirka xildhibaan Gavin Williamson ayaa dhammaan dadku ku jeenay qaarnaayeen saaka iyadoona ay qayb ka ahaayeen banaanbaxa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha Somaliland xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka madax dhaqameed haween iyo ardayda dugsiyada ugu horeynba waxa goobtaasi kala hadlay kumanaanka shacabka ee soo buuxdhaafiyay maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco iyagoo uga mahad celiyay baarlamaanka waddanka Ingiriiska sida ay uga doodeen qadiyadda madaxbannaanida Somaliland maanta Burco oo muujisay inay tahay hooyada Somaliland marka labaadna jiilkii cusbaa ay soo saartay ay ku guuleysteen inay iyagoo Somaliland la daa maanta mas'uul ka yihiin degmada Burco oo ay 30 jir Somaliland la daayiin walaalayaal waxaynu doonaynaa inaynu afyaadinba ku muujino inaynu inagu Somaliland dhisnay inaynu cid walba uga lahajaalo badannahay inaynu uga horeynayno marka labaadna waxaynu mahad u celinaynaa xukuumadda Somaliland madaxweyne Muuse Biixi hogaamiyo dadaalada ay ka soo kordhisay hanaanka cidiraaf raadinta isla markaana beesha caalamka iyo guud ahaan baarlamaanka Ingiriiska xubnahaas ka mid ah ee doodeena maqashiiyay dadka kala duwan ee iyaga u dhaga nugul munaasabadani maanta waxay daarantay waxa weeye inaynu u mahad celinno baarlamaankii UK ee qadiyadeena ka dooday ee shacabka iyo adduunweynahaba gaarsiiyey ee u sheegay inay Somaliland tahay dawlad madax bannaan dal isku filan oo maanta u baahan in la ictiraafo aad baan ugu hambalyeynaa xildhibaanada gartay inay maanta Somaliland haddii ay shuruudihii qarannimo buuxisay oo ay doorashooyin madax bannaan qabsatay oo golo deegaan leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo nabadgelye leh in maanta ay tahay dawlad isku filan Somaliland loo baqi maayo maanta siyaasaddeedii arrimaha dibadda waa arkaysaan halkay marayso Ingiriiska waa u mahad celinaynaa abaalkii lagu lahaa reer Somalilandna way muujiyeen inay maanta celiyeen Ingiriiska waxaanu leenahay dhiigayagii iyo dheecaankayagii iyo raggayagii baa ku aasan dhulka Ingiriiska waa mahadsantiin maanta haddaa garateen in abaalkii celisaan Togdheer ama Burco way ka duwan tahay gobollada kale waa hooyadii Somaliland waa meeshii lagaga dhawaaqay waxaan u hambalyeynaa oo mahad celinaynaa baarlamaanka Ingiriiska oo runtii ku soo beegmay waqtigiisii inay ka doodaan qarannimada Somaliland maanta way ku soo beegantay waqtigeeda ayay eeg tahay waxaan leenahay Somaliland loo baqi maayo maanta runtii waa maalin weyn waa maalin ay Burco ismuujisay waa maalin ay muujisay inta ay dheer tahay Somaliland halkan waxaan uga mahadnaqaynaa hambalyo iyo bogaadina uga diraynaa guud ahaan baarlamaanka waddanka UK gaar ahaan Gavin Williamson oo abaabulay doodii ka dhacday golaha baarlamaanka oo ka mid ah fagaarayaasha waaweyn ee adduunyadu isugu timaado lana tixgeliyo allayna ictiraafo waa hooyadii Somaliland af walba kugu badana waxaan leenahay adduunku alla ictiraafo baarlamaanka Ingiriiskana waa u mahadnaqaynaa duuniyo gobonnimo waxaanu mahad ballaaran u naqaynaa oo aanu u bogaadinaynaa baarlamaanka boqortooyada Ingiriiska ee hor keenay dooda ictiraafka Somaliland inay ka doodaan aad baan ugu mahadnaqaynaa in maanta baarlamaanka Ingiriisku ka doodayo qadiyadda Somaliland waxaan kaloo mar labaad u mahad celinaynaa guddida golaha joogtada golaha wakiilada arrimaha dibadda dhinaca kale waxa iyaguna goobtaasi kula hadlay dawladaha Yurub 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco iyagoo ugu qodbeeyay luqadaha Ingiriisi Germany Faransiiska iyo Swedish kuna baaqay inay taageeraan madaxbannaanida Somaliland Today as a citizen of Somaliland we would like to express our gratitude to the member of parliament the British Parliament for recognition for debating Somaliland recognition. We send you a special thanks
to Gabe Williamson, Zach Goldsmith, Rushdana Ali for supporting Somaliland. waxaan halkan fariin ugu dirayaa 12 waddan oo ka mid ah Yurub oo aan u dirayo fariinteena anagoo ku hadlaya afka Jarmalka sehr geehrte meine Damen und Herren, ich bin Ahmed Wale Shire, eine Abgeordnete von Somaliland. Im Namen von Somaliland habe ich eine Nachricht und Bitte an Europa. Wir wollen die Länder Deutschland, Frankreich, Niederland, Italien, Österreich, Switzerland, Belgien, Dänemark, Schweden, Norway und Finnland. Somaliland ist eine eigene Staat seit 1991. waxaan garab istaagaynaa aniguna afka Swedishka oo ay fahmaan 4 waddan Finland, Sweden, Norway iyo Denmark ayaa la fariin u dirayaa dowladahooda Helsingør from Burco Handelsstad i Somaliland. Somaliland har sitsat börjat ta sitt självständigt från Somalia 1991. Vi har varit ett eget land i 1960. Bonjour la communauté francophone en Somaliland, en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Somaliland, un pays qui existe depuis 30 ans, mais encore on recherche la justice. ugu dambeyntii waxay dadweynaha magaalada Burco ay u heliyaan mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ay safar socdaal ku tageen xaruntii lagaga dhawaaqay madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Cabdirashiid Timir, maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV, Burco.